بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا شيخنا فاضل. سيدة ونكسن تلوين كاسوغي جوابتي إلى ميزان حسناتك كوسارو. شيخنا فاضل سؤال شحكتو وويل أو سائل ويل كان رنتي وويل أول والسناء وقف أن توس ولحظي سلام كسعد وكسلام يا وحلي وحنا هاي شيخنا ويل يرو دلنيرا oo runtii diintiisa haysto oo quraanka iyo digrigiisa carabka ku haya mar walbo quraankana marka akhriyo aad ban ugu tadaburaa oo yani qushuuc baa igu soo degtaa buu yiri laakiin hal cilad ban leeyahay buu leeyahay shaquna wax la oran jiray zinada ayaan iska kari lahayd buu leeyahay sheekhu maxay ugu la talin lahayd anigoo sidaas quraanka u akhrinayo oo ku ooyayo mar walbo laakiin waan iska kari lahay buu leeyahay zinada maxay igu la talin lahayd buu leeyahay inoona soo duceey buu leeyahay walaalahana ii weydiin ducada insha Allah buu leeyahay falyatafadal mashkuuran shaykhuna. alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasuulillahi wa ba'd sallallahu alayhi wa sallam ama ba'd. ninka yare dhalinyarada ah ee diintiisa ku toosan quraanka aqriya dhikriga carabka ku haya waliba quraanka ku tadabburo ku ooya ilaahay ha u ziyaadiyo tabaaraka wa tacaala ikhlaasna ilaahay tabaaraka wa tacaala ha ooga dhigo. waa imtixaan waa dhici kartaa qofka in wax mucayana lagu imtixaamo waa wax suurtagala oo maxaa la yidhahdaa waxaad arkaysaa nin cibaado badan oo taaco badan oo hal meel ku xun mid waxaad arkaysaa aan cibaado badnayn oo hal meel ku wanaagsan makhluuqa iyo bini aadamku ilaah abuuray baa noocaasa laakiin faaxishadani waa faaxisho aad iyo aad u foolxun weeye ilaahayna wuxuu leeyahay walaa taqrabu zina zinada iska daa inaad ku dhacdaan ee xataa muqadimaadkeeda ha u dhowaanina. walaalka waxaan ugu nasteexayn lahaa hadduu reer lahayn ma uusa sheegin in uu reer leeyahay ma sheegin nin yaroo dhalinyaro oo diinta ku toosan baahay buu yidhi waxaa cilaajka iyo daawadu waa zawaajka iyo guurka. nabigeena sala allahu alay wasalam yaa macshara ashabaabi man istataaca minkum albaa'ata falyatazawaj fainahu agadu lilbasari wa axsanu lilfarj. waa dhalinyaroy guursada indhahoo la laabo iyo farjigoo la xifdiyo guurka u wanaagsan waa ku nabigu leeyahay sala allahu alayhi wa alihi wasalam. marka guurku waa nisfu diin wa fii budci axadikum sadaqa yacni waxaa weeyaan markaad reerkaaga xidhiidh idin dhex marana sadaqayba kuu tahay adiguna waad ku nafidaysaa. waa miduu nabigu lahaa sala allahu alay wasalam hadduu nin idinkeedan kamida suuqa aado oo haweenaydiisii haween ka qurux badan uu arko oon wax galo shaqaduu haya ha ka soo laabto oo xaaskiisa ha ku soo noqdo maxaa yeelay wuxuu waa isla wixii weeye. hadduu xaaraan ku baxo iyo hadduu xalaal ku baxo wuxuu waa wuxuu shahwadii ay ku go'ayso laakiin kii xalaashi baa kuu wanaagsan kan xaaraamtana rabbi baa xarimay tabaaraka wa tacaala. waxaan ku dhihi lahaa wiilka dhalinyarada ahow horta ilaahay tabaaraka jalla wacalaa muraaqabadiisa ku dadaal mar walbaba. waa marka labaad ee guurka ku dadaal. waa marka saddexaad ee asbaabaha kugu keenayo oo dhan waa inaad iska ilaalisaa. haddaad keligaa degan tahay ka guur keligaayoo dhalinyaro la deg. haddii aad arkayso gooni markaad u baxdo inuu shaytaanku kuu imaanayo arrintaas ayadaa gooninimada iska ilaali. khalwada iyo inaad qof dumara gooni guri kula noqoto iska ilaali. filimada iyo waxyaalaha internetka laga daawan karo arrinta ayadaa iska ilaali. wahaakada sheekada dumarka aad u sheekaynayso ee hadallada jilicsan aad kula hadlayso iska ilaali. idan wax walba oo kugu riixi kara inaad xumaan iyo zina ku dhacdo iska ilaali. mar walbaba la soco dhalinyarada iyo ragga masaajidada keligaana guri ha degin xataa haddii ay noqoto inay dhib kugu tahay inaad keligaa guri seexato oo markaa shaytaanku sidaa kugu imaanayo isku day intaad reer ka yeelanayso inaad la seexato dhalinyaro. dariiqaas waxaan isleeyahay haddaad qaado waad ka badbaadi doontaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. ilaahayna waxaan ka baryaa adig iyo annagaba ilaahay inuu cudurka khatarta ah ee bulshada ku faafay runtii meel walba ka galay ilaahay inuu naga ilaaliyo wallahu aclam.